السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وضع حبنتين دعضو ميديا أتكلم صوتان برتنا يوتيوب فضلنا تدخل عصب جنا كسبسكرايب صار سيكون سجران مقالة عصب يعني سوق لنا ومحي كورونا فيروس عذر كان ومعلومة دنبه ugu badnaa caalamka ayaa soo gaaray wadamo kamid ah Afrika sida Ethiopia iyo Kenya oo laga helay kiisaskii ugu dambeeyay. Cudurka coronavirus waa mid kamid ah cudurrada la isqaadsiiyo ama faafaviruskan cusub ama cudurkan ama aqoonsan karo inta uusan ku dhacin magaalada Wuhan gobolka Hubei ee dalka Shiinaha bishii December sanadkii 2019. dadku waxay ka qaadi karaan cudurkan coronavirus dadka kale ay xanuunka la ildaran ama ay qabaan viruskan. tusaale qofka qaba cudurka coronavirus markuu qufaco hindhiso ama neefsado wuxuu sii deynayaa dhibco yaryar oo ka soo baxa sankiisa ama afkiisa kuwaasi oo gaara hareeraha dadka kale, sidaasna way kugu qaadsin karaan. calaamadaha lagu qorto cudurka coronavirus waxaa ka mid ah sida cudurka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ay bayaan ka soo saareen ay ku xaqiijiyeen calaamadaha ugu caansan ee cudurka coronavirus waa qandho, daal badan iyo qufac qalalan. bukaanada qaar waxay yeelan karaan xanuuno jidhka ah, sidaas daradeedna cudurkan ma laha wax daawo ilaa hadda la sheegi karo, laakiin si Soomaalida ayaa ugu badan dadka alla nooma qadare haddii cudurkan uu yimaado Soomaaliya dadka la ildaran karo sababtoo ah ma jiraan daryeel caafimaad oo ku filan dadka. balse waxaanu ku digi lahayn ilaa nama soo gaarsiiyay in laga digtoonaado marba haddii cudurkan soo galay dariskeena wadamada nala sida Ethiopia, Kenya, Angola iyo qaar ka mid ah wadamada Afrika. cudurkan waa maasantihiin, waa dhacdo video idin leh maalin wanaagsan. subscribe saar, la wadaag asxaabtaada kale, waad maasantihiin. waxaanu idin leenahay isku soo noqosho wanaagsan.